meelo badan oo waxaa arkaysaa oo Soomaaliya ka mid ah meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ka soo bilow waqooyi galbeed ka soo bilow waliba Boorama ka soo bilow Hargeysa meesha la yiraahdo Bulxaar markaad joogtid oo Berbera iyo Hargeysa u dhaxayso dhinaca Berbera xeebta markaad martid waxaad arkaysaa meelo ceel caadi ah sida ceelashii caadiga ah oo kale oo daboolan waxa ku qoran ceelka dushiisa waxa ku qoran isku garanaysaa geedar dhir baa wali ka dhaxbaxday oo geesihiisa dhir badan ka baxday lama garan karo uu qarsan yahay uu dahsoon yahay laakiin ceelka afkiisa waxa ku qoran 710 oo far waaweyn ah 710 soo bax shabeellaha hoose markaad timaado waxa arkaysaa meelaha kurtunwaare ay ka mid yihiin iyo sablaale eeriyadeeda ka mid yihiin jidad waxaa jira jid Mareykan la yiraahdo ayaa jira oo jidadka caadiga aan ahayn ka intaas dhexdeeda ayagana waxa ku yeelan dhowr ceelo afka sibir lagaga xiray waayo loo xiray waxa ku dul qoran asna ayagana waxa ku dul qoran 710 jubada hoose aad area Kismaayo area afmadow markaad tagtid dhowr meelood waxa arkaysaa ay ku qoran tahay 710 haddaba adigu mid samee marka 710 dhanka kale ka soo istaago aqribal 710 erey Ingiriisi ay noqonaysaa 710 marka dhanka kale laga soo istaago ereyga Ingiriiska waxa la yiraahdaa oil wasaliid ikaas bixin waxaan u wada hadalkan daayirta cusub ayaan wada the new generation aan wada hadalkan sirtan inay ka hoos bixin 710 waxay macna leedahay mal laakiin marka dhanka kale ka soo istaagtid 710 waxay noqonaysaa oil bay noqonaysaa waa saliid in ka hoos bixin wala sii dabooshay maxaa loo daboolay gorgortan lala gorgortamayo dawladda xilligaas jirtay iyo dawladdii markaas joogta si loola gorgortamo sidaas la mid ah badda dhexdeeda ceelal kale ayaa jira waayo hadda badda muruq loo gelinayo sababtaas